Well, ladies and gentlemen, Somali Health Alliance presents a series of health promotion and disease prevention, presented in Somali language. Today our topic is Take Charge of Your Health, and our presenter is a prominent public health professional in our community. Please join me to welcome Mr. Muhammad Adan Ali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. walaalyaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kelmadda maanta aan halkan ka soo jeedinayo waxay ku saabsan tahay nicmo ka mid ah nimcooyinka alla subxaana wa tacaala uu ina siiyey ee tirada badan. nimcadaas oo ah nimco runtii aad qaali u ah oo la'aanteeda jiritaanka nolosha adduunka aysan dhadhan yeelanayn. nimcadaasi waa nimcada caafimaadka, oo haddii nimcadaasi aynu nidhaahno alla subxaana wa tacaala ugu mahadiya xitaa mid keliyata oo alla subxaana wa tacaala oo caafimaadku ina siiyey, haddaynu nidhaahno alla ugu mahadiya inta aynu nool nahay oo dhan ma awoodi karayno oo ma dhammaystiri karayno alla subxaana wa tacaala mahadintu uu inaga mudnaa. marka mar haddii arrinku sidaa yahay, waxaa inagu waajibah in aynu ilaashanno caafimaadkeenna, ogana faa'iidaysanno muhiimadda alla subxaana wa tacaala uu inoo abuuray. balse waxaa nasiib darro noqotay iskaba daaya in aynu alla ku shukrino oo aynu ilaashanno dhowrno caafimaadkayaga. waxaa alaaba dhacda inaynu dayacno, aanu qayb ku yeelanno burburka iyo dhaawaca ku yimaada caafimaadka alla subxaana wa tacaala uu ina siiyey, taasoo ina dhaxal siisa bukaan iyo cudurro sabab u noqon kara geeri iyo halaag ku yimaada naftayada. alla subxaana wa tacaala taa wuu inooga digay, isagoo noo sheegay in aynu nafteenna aynan halaageeda iyo burburkeeda aynan qayb ku yeelan. oo alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi: walaa tulquu biaydiikum ila atahluka. dad yahow naftiinna ha u horseedina, naftiinna ha u horseedina halaageeda iyo burburkeeda, oo gacan ha ku yeelanina in aad ka mid noqotaan ood qayb ku yeelataan halaaga iyo burburka naftiinna ku imaan karaya. markaa arrintan ama kelmaddan aan maanta halkan ka soo jeedinayo, in aan sidaa u hadlo ama sidaa u diyaariyo oo islaamiyan iyo public health isu keeno, waxaa igu xambaaray khibrad badan oo aan ka dhaxlay dad muslimiin ah ama dad Soomaali iyo dad Afrikaan ah oo qaxootiyo iyo soo galootiba halkan ee ku dhaqan Washington State, gaar ahaan magaalada Seattle iyo King County area. dadkaas waxaan kala kulmay arrimo aan la yaabay oo ku saabsan caafimaadkooda. tusaale ahaan, waxaan arkay horta aqoon la'aan inay jirto, oo waa wax dhici kara oo cid kastaba jahli waa kaga jiri kartaa xagga aqoonta caafimadeed. laakiinse waxaan arkayna cabsi ba'an iyo stigma waxa loo yaqaano iyo shame of diseases, in cudurradaba la neceb yahay oo aan la doonaynba in cudur la qirto ama laga hadlaba. waxaan kaloo arkay iyana in si qaldan loo isticmaalayo islaamka, gaar ahaan marka ay noqoto qadarta oo kale. oo waxaad arkaysaa qofka oo markaad kala hadashidba mawduuc caafimaad ah wuxuu ku leeyahay haddii alla ii qadaray waxaan way ku dhacayaan, hadduusan alla ii qorin iguma dhacayaan. waxaad arkaysaa qof baad kala hadlaysaa caafimaadka iyo cudurkan haddii sidan haddii ay dhacdo, haddii aan waxaan la samayn, waa prevention haddii laga hadlayo, iyo haddiiba management cudur laga hadlayo, wuxuu ku leeyahay aniga ajashayda saacadna laga soo hormarinayo, saacadna dib looga dhigi maayo. waxyaabo badan oo noocaas ah oo aan kala kulmay baa waxay ugu qasabtay inaan baxthi diiniyan sameeyo, oo aan kutubadii qur-aanka iyo axaadiistii online iyo offline ba aan raadiyo, oo aan markaa isu keeno maxaan ku rahaa presentationka aan doonayo in aan bal ku bridge gareeyo, oo aan u noqdo salaankii ama aan noqdo
maxaa la dhihi jiray meeshii la isaga gudbi lahaa labadan dhaqan ee dhaqankan afrikaaniga ama soomaaliga ah iyo dhaqankan kale caafimaadka ee public healthiga maxaan ku radaa sidii bal isu faham uu dhici lahaa ayaan doonayaa inaan bal sameeyo arrintan waxaan ugu magac daray marka inaan leeyahay take charge of your health caafimaadkaaga mas-uul ka noqo qof yahow cid kale ha u danayn caafimaadka alla subxaana wa tacaala uu ku siiyey adigu mas-uul ka noqo marka contentiga ama waxa aan presentationkan aan maanta uga hadli doono waxaa ka mid ah in aan balqayaxo oo aan sheego xaaladda caafimadeed ee ay ku sugan yihiin muslimiinta ku dhaqan King County-ga ama gobolkan Washington State guud ahaan ujeedadeeduna ma ahan in aan ka hadlo historygii islaamka ee runtii cajiibka ahaa ee caafimaadka ma doonayo inaan ka hadlo islamic science ma doonayo oo cilmiga islaamka ee maxaan ku radaa ma doonayo inaan ka hadlo ma doonayo islamic medicine inaan ka hadlo ma doonayo oo waa wax dadku ay wada garanayaan ay maqleen waxaan doonayaa waxa maanta taagan in aan ka hadlo iyo dhibka taagan iyo sida looga bixi karayo waxaa kaloo dhici doonta inaan ka hadlo in manduurka islaamiga islamic perspective of health inaan ka hadlo taasoo dhici karta inay noqoto qaybta labaad waxaan kaloo ka hadli doonaa ahmiyadda islaamka ee maxaan ku caafimaadku ku leeyahay ahmiyadda caafimaadka in islaam intaan taa dhanba aan u guda gelin waxaan doonayaa inaan marka hore qaraarkan aan idinku dul aqriyo oo dhahaya waxaad arki doontaan dad yahow anigoo aayaad quraani ah ama axaadiis nabawi ah ka hadlaya soo dariishanaya ayaad arki doontaan taa macnaheedu maaha marka inaan anigu aan ahay nin diinta maxaan kula ku xeel dheer oo religious scholar inaan ahay macnaheedu ma ahan oo ma ihi waxaa laga yaabaa inaad aragtaan anigoo cudur ka hadlaya ama cudur sida uu ku yimid ka hadlaya taana macnaheedu ma inaan medical doctor ahay balse waxaad arkaysaan anigoo ka hadlaya dadka yaga iyo dad la mid ah iyo arrimo caafimaad guud public health ama global health taasi waa profession anigoo aan leeyahay oo aan muddo u tababartay anigoo markayga tropical medicine ku takhasusay haddana global health professional ah oo haddana gaar ahaan u xiiseynaya social cultural determinants of refugees and immigrant health in United States gaar ahaan Washington State ayaa hawshaas waan muddo ku holanaa baa idxalsiisay in aan arrintan aan guda galo